الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد أحبابي في الله waxaynoo soo socotay taariikhda sayidkii weynaa sayid abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fabimaa raxmatun min allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين naxariista alle darteed ayaad ugu jilicsanaatay haddaadse tahay mid ingegan oo adag oo qalbi adag way kaa kala tegi lahaayeen agtaadana way ka fogaani lahaayeen facfu canhum iska cafi wastakfir lahum dembi dhaafwarso washaawirhum fil amri kalana tasho amarka faidaa cazamta markaas haddaad go'aansatana fatawakal cala allaahi tala saaro alle ina allaha yuxibu almutawakkiliin alle waxa uu jecel yahay kuwa tala saarta wey marka meeshaas waxaa kaaga cad wax walbo in laga tashadaa la rabaa talada maqsuudkeenna wuxuu ahaa washaawirhum fil amri wax walba taluu raba in laga tashada wey waxaa cad erayga talo wadaag in uu yahay mid ku sugan qur-aanka sida ku cad labadii aayadood ee hore aayad kale agtaa ka horreyso waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi waalfawaaxisha labadaas aayadba waxay kutusayaan talo wadaag inuu qur-aan ku jirto wey midda hore waxa ay qeexaysaa sifooyin u gaar ah ummadda islaamka oo ay ka mid yihiin in arrimahoodu yahay wadatashi dhexdooda ah midda labaadna waxay soo degtay dagaalka uxud kadib waxaa la og yahay in nebi moxamed naxariistii nabadgelyo ha haatee la tashaday saxaabadiisa marka aayadaha waa laba aayadood aayadda hore waxay ka hadashay masiirka guud ee muslimiinta ayay ka hadashay laakiin midda dambe oo aayadaha midda dambe waxay soo degtay dagaalka uxud kadib ayay soo degtay weye rasuulka calayhi salaatu wassalaam asxaabtiisa naxariis gulkiis alla haatee la tashay asxaabtiisa ka hor inta aanu bixin dagaalka uxud qur-aanka kariimka ah waxa uu nebi moxamed naxariis iyo nabadgelye korkiisa haatee ka dalbaday inuu arrimihiisa kala tashado ummadda uu hogaaminayo maxaa yeele nebiga hogaamiyuu ahaa calayhi salaatu wassalaam ummadduu hogaaminayo inuu kala tashado wax walbo amaro ku imaado ayuu qur-aanka kariimka amray nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ummadda muslimiinta ahayd ayaa ka tashatay cidda hogaamin doonta geerida nebiga naxariistii nabadgelyo ha haatee maadaama qur-aanka kariimka ah uu amray wadatashiga waxaynu isku raaceen in sayid abubakar
uu noqdo hogaamiyaha hogaamin doona. waxay isku waafaqeen sayid abubakar inay ka dambeeyaan, uu hogaamiyo, uu maamulo, halkaas ay hawsha ka socotay amarkaas ay waxa isku waafaqeen wey. sayid abubakar ayaa jeediyey khudbad ay ka muuqatay daacadnimo iyo tawaaduc, taas oo saamayn ku yeelatay dadkii goobjoogga ahaa. yacni nin walbo goobjoog ahaa runtii wuu la murugooday sayidka siduu u hadlaya waaye. sayidka kelimaad wuxuu ku hadlayay murug badan ay ka muuqato waaye. wuxuu yidhi khudbada waata marka, dadow madaxdiinna ayaa layga dhigay, mana idinka khayr badni. bal fiir adiga, mana idinka khayr badni. tawaaduc bal fiir meeshuu gaaray. haddii aan wax wanaajiyo igu kaalmeeya, haddii aan wax xumeeyana ii toosiya. runtu waa ammaano, beentuna waa khiyaano. kiina tabarta daran agtayda xoog ayuu ku leeyahay ilaa aan xaqiisa uga soo dhiciyo. yacni kiina la dulmiyo, dulmigaas waxaa weeye agteeda luma dulminayo waa dulmiga waan ka hortegaya. kiina awoodda lehna agtayda daciif ayuu ka yahay ilaa aan ka qaado xaqa lagu leeyahay. maanta soomaaliya maxaa halaagahayaa? soomaaliya maanta waxaa halaagahayaa dad damiirkooda uu dhintay yaa xilka noogula dhiibay. dabeedna waxay rabaanay samaynayaano kama fikirayaan maxaa waxaan ka imaani karaa. ummaddana lama tashado, ummadda waxba lama weydiiyo, ayagaa iska tashadaan, ayagaa is xukumaan, ayagaa ismaamulaan, marba meel raleec iskay wada hayaan wa. soomaaliya ninkii ilaahay subxaanahu watacaala yaqaanayna silac baa loo gelahayaa iyo saxariir oo alla kacabsigiisa dhab wa ka heed. kii dhaalimka ahana soomaaliya awood baba ku yeeshaa, awood buu ku leeyahay oo dadka waxa dhammaynahayo dhaalimiin waay. dhaalimiin ilaahay aan waxba ka ogeyn oo diin islaam waxba aanan ka ogeyn yaa islaamka laynayo maalin walba qori hayso oo muslimka dhammaynahayaa wey. waana loo yeelay ismayna yeeline waa loo yeelay weeye. marka sayid abubakar wuxuu leeyahay kiina awoodda leh agteeda daciif ayuu ka yahay ilaa aan ka qaado xaqa lagu leeyahay. yani wax awood sheegani kara ma jirto macnaha. haddii uu alla idmo qofna kama tago jihaadka ilaa haddii uu ka tago alle wuxuu ku sallidaa dulli buu yidhi. jihaadka qof kama tago ilaa qofkii jihaadka ka tagana balaaye iyo dulli ayuu ilaahay ku sallidaa buu yidhi sayidka. igu adeeca oo igu raaca wixii alle iyo rasuulkiisa ku adeeco. yani wixii alle rasuulkiisa ani aan ku raaco oo aan ku adeeco idinkan igu adeeco buu yidhi. haddii aan alle caasiyana wax adeecid ah idinkama lihi, yani idinkuma lihi waxba hay adeecina waa. haddaa ilaahay caasiyana gees iga mara waxba hay soo adeecina, laakiin haddaa ilaahay adeeco idinkana i adeeca buu yidhi sayidka weeye. bal fiirada cajaa'ibta meeshan taalla. markii uu sayid abubakar la wareegay hoggaanka ummadda waxaa dhacday musiibo weyn oo haddii sayid abubakar caqligiisa ku xallin lahaa si aad ah u saamayn lahayd diinta islaamka. yani diinta islaamka dhib bay ku noqon lahayd hadduu caqligiisa ku xallin lahaa wey. sidoo kalena kala goyn lahayd wadajirka muslimiinta waay. maxaa yeele muslimiinta nebiga markuu noolaa way midaysnaayeen. haddii abubakar caqligiisa ku shaqayni lahaa waxa waaye diinta islaamka aad iyo aad bay wax badana isku qarrimi lahaa wa. samaadan fahmin, wax badan ayaa isku qarrimi lahaa. laakiin dadkii waxay ahaayeen dad waxa waaye waafaqsan bay ahaayeen. geerida nebiga kadib waxaa diin islaam ka laabtay dadkii ugu badnaa, iyada oo ay diinta ku soo hareen reer maka oo maaragtay quraysh ah, reer taa'if, reer madiina iyo qaar kale oo yar. xilligaas dadku waxay u qaybsameen laba qaybood. yani markii nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam xilkana loo dhiibay sayid abubakar,
dad badan diinta ka baxay oo diinta ka laabtay dadkina laba u qaybsameen dadkii abala u sii qaybsamay waliba mid gebi ahaanba ka baxay diinta sida reer bani qadafaan iyo reer bani xaniifa mid diiday inuu bixiyo zakadii sida reer bani tamiim iyo reer bani hawsaan qolal dhahowey labada qoloba ayagana waxa weeye zakada inay bixiyaan bay diideen waa khaliifka muslimiinta Sayyid Abubakar waxa uu go'aansaday inuu la dagaalamo dhammaantood midka diida inuu bixiyo zakada iyo midka diinta ka laabtay isaga oo yiri zakada bixinteeda oo la diida waxa ay dhaawac ku tahay salaada iyo dhammaan tirarka diinta islaamka Sayyid Umar ayaa yiri Abubakarow sidee ula dagaalamaysaa iyada oo nabiga naxariis iyo nabadgelyo ha ahaatee korkiisa ahaatee yiri waxaa lay amray inaan la dagaalamo dadka ilaa ay qirayaan alle xaq lagu caabudo in aanu jirin alle mooye qofki intaas yiraahda waxa uga ilaaliyay naftiisa iyo maalkiisa nabiga waa sidaa yiri Sayyid Abubakar oo maxaa oo la dagaalamay dadka buu yiri Sayyid Abubakar ayaa waxa uu yiri wallahi waan la dagaalamayaa qofkii salaada iyo zakada kala qaado zakada waa xaq lagu leeyahay hantida wallahi hadday idiidaan xariga geela lagu hogaamiyo kaasoo ay siin jireen nabiga naxariista nabadgelyo korkiisa Allah yeelee waan la dagaalamayaa buu ku jawaabay Sayyid Abubakar waan la dagaalamay xariga oo hadday idiidaan iga reebtaan nabiga ay siin jireen waan la dagaalamay buu yiri Sayyid Abubakar marka Sayyid Abubakar waxa uu damcay inuu ciidamadii muslimiinta isku dhaafo oo uu diyaariyo ciidan culus kuwaas oo iskugu kuwa marka uu diyaarinayo wuxuu rabaa inuu asaga hogaamiyo rabaa sayidka moogtahay mar rabo inuu dadka u dhiibo waa sida marka asaga uu rabo fikir ahaantiisa markaas ayuu seeftiisa galka kala baxay oo uu isku diyaariyay la dagaalanka dadkii diinta ka ridoobay waxa uu ka haystay ciidankii joogay magaalada Madiina oo dhan marka laga reebo ilaala yar oo magaalada uga tagay si magaalada u difaacaan markii uu Sayyid Abubakar magaalada ka baxay ayaa wax markuu magaalada ka bixi rabay oo magaalada uu ka bixi rabo oo diyaariyo diyaar u yahay waxa ku dhagay Sayyid Ali bin Abi Talib waxauna ka dalbaday inuu asaga bixin uu booskiisa ciidanka mas'uul uga dhigo mid kamida haliyada muslimiinta oo wuxuu yiri Sayyid Abubakar oo ha bixin ciidamada mas'uul u yeel adiga laakiin ha bixin buu yiri sayidkii asoo marka waxa weeye diinta islaamka u naxayo weey Sayyid Ali arinta wuxuu ku sababeeyay oo uu yiri haddii lagu dilo khaliifkii rasuulka oo la jeedo Sayyid Abubakar dawladdu nidaam ma yeelanayso buu yiri kala dambayti baa meesha ka baxaysa muslimiintuna niyad jab weyn bay ku imaanaya Soomaaliyeed maadaama intaas culays u imaan karo adiga sayidkii baa tahay hogaamiyihii baa tahay khaliifka rasuulka baa tahay adiga ha bixin ciidamada qof madax ah u yeel qofka hogaamiyo asaga ha baxo marka sidaas la mid ah qaar saxaabada kamida ayaa Abubakar kula taliyay Sayyid Abubakar waxa uu ku qancay fikradaas quman ee uu soo jeediyay Sayyid Ali waxa uu na dhisay ciidan ka kooban 11 qayb
isaga oo mid walba u xiray calan una magacaabay amiir yacni mid walba calan uu u xiray amiirna uu u magacaabo amiir hebela u taliyaa buu yidhi kadib sayid abubakar waxaa dhacday waxa uu ciidan weliba amiirkooda u dhiibay warqad ay u dhiibay si ugu dul aqriyo deegaan weliba oo uu sii maro oo uuna xagga alle ugu yeedho waana tan qayb ka mid ah warqaddii uu sayid abubakar qoray dadkaas uu qoray waxa uuna ku bilaabay sida tan warqaddii uu qoray sayid abubakar oo waagaas ciidanka u qoray waata warqaddeeda ahayd wey wuxuu ku bilaabay magaca ilaahay subxaana wa tacaala naxariis guuddii mid gaarba korkiisa ahaatee wuxuu yidhi marka warqad ka socota abubakar sidiiq khaliifkii rasuulka alle naxariistii nabadgeli korkiisa ha ahaatee ku socota ciidan kasta oo ay gaarto warqaddan guud ahaan gaar ahaan kuwii ku sugnaaday islaamka ama ka laabtay nabadii ha ahaato dusheeda ciddii raacda hanuunka oo aanan u noqon baadida hanuunka kadib waxa aan ku mahadinaynaa allah uusan jirin alle kale isaga mooyaane waxa aanu qirayaa in uusan jirin mid xaq lagu caabudo oo aan isaga ka ahayn xaal uu yahay keli asaga weliba asaga xaal uu mid keligiisa yahay yaan qiraynaa buu yidhi oo uusan jirin wax cibaadada lala wadaajin kara nebi muxamedna naxariistii nabadgeli korkiisa haatee uu yahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii waxaanu raalli ku noqonaynaa waxa uu la yimid nebi muxamed ee warqadda ku qoray waa dardaaranka balfiil aad cajiibka leh waa dadaal cajiib leh waa intaas kadib allah subxaanahu wa tacaalaa ayaa nebi muxamed nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee xaggiisa kala soo diray xaq isagoo u soo diray dhanka khalqigiisa si ugu bishaareeyo inta rumayso uguna digo inta ku diidda oo ku khilaafta wey oo kufrida oo kufrigii gaalnimo la imaato wa sidoo kale waxa uu alle weyne u soo diray inuu dadka ugu yeedho xagga alle iyo jidka xaqa ah si uu uga digo inta nool ciqaabta alle cadaabtiisana ay ugu waajibi yacni gaalada cadaabta ilaahay baa ku waajibaysaa moogtahay subxaana wa tacaala intaas kadib alle subxaana wa tacaala ayaa oofsaday rasuulkiisa isagoo ka soo baxay wixii la amray gutayna waajibkii alle saaray alle subxaana wa tacaala geerida rasuulkiisa waxa uu ku caddeeyey kitaabkiisa qur-aanka oo waxa uuna yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adiga waad dhiman doontaa muxamedow nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee iyaguna way dhiman doonaan wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum khaaliduun maanan yeelin dadkii kaa horreeye maanan ka dhigin kuwa waara waxa waaye qof walbaba wuu tegahayaa macnaa qof walba wuu tegahayaayo adduunyada laguma maarayo oo qof walba maalinkiisa unbaa la kaxaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa waatuu ku dhahaye wamaa muxammadun ilaa rasuul qad khalat min qablihi arusul afa in maata أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبي محمد maaha wax aan rasuul ahayn
وما محمد إلا رسول يعني محمد ماها وحان رسول له قد خلت من قبله الرسل وحاتي هرتيس رسول أفإن مات هدود دينتو من أفإن مات أو قتل انقلبتم أما لدلو ما waxaad u gadoomaysaan yani dib u gurasho miyaa samaynaysaa dib miyaad wixii diintii inta uu inku soo waday ma dib aad oga laabanaysaan macnaha waman yanqalib calaa caqibayhi falan yaduru allaha shay-an soo aragtid ruuxi u gadooma oo diinta gaalada dib ugu laabta falan yaduru allaha shay-an kama dhibo alle waxba ilaahay subxaanahu wa ta'aala kama dhibo magaysa culays oo kuma hayo wasayajzi llaahu shaakiriin alle subxaanahu wa ta'aala wuuna abaalmariyaa oo abaalmarin buu siini kuwa ku shukriya waay marka nebi maxamed rasuul leh waay rasuul waayo bashar waayo oo basharada kamida waa bashar walbana uu dhimanaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii la oofsaday oo waqtigiisi imaaday madiintii baa dib loogu laabanaya shal laga soo tagay maya waay islaamka baa la haysanhayaa marka waxa weeye taariikhda weli way inoo socotaayoo maysan dhammaanin insha allahu tacaala taariikh intaasaan kusoo gabagabaynahayaa qaybta labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu